dunidan aynu ku noolnahay waxaa soo maray shakhsiyaad aad u fara badan, qaarkood ay naxariis badnaayeen marka loo fiiriyo wanaaggii ay qabteen. Sidaas la mid ah waxaa jira dadyo ka fogaa naxariista aadanaha oo sabab u noqday dhimashada malaayiin dad ah, dhiigga aadanahana ka dhigay wax aanan micno ku fadhin. Muuqaalkeenana waxaan ku eegi doonaa dadkii ugu arxanka darnaa ee taariikhda aadamaha soo maray iyo dilalkii ay geysteen. Nambarka 5, ninkii New Zealand ku laayay muslimiinta. Ninkan wuxuu weeraray masaajid ku yaala New Zealand ee magaalada Christchurch taariikhdu markii ay ahayd 15 Maarso 2019. Masaajidka oo lagu magacaabo Al Noor maalin Jimco ah, inta uu hub iska soo buuxiyay ayuu si arxan darro ah u laayay, wuxuuna dilay 50 qof isagoona dhaawacay 49 ruux. Waxaana arrinkan arxan darrtii ugu darneed ka dhigay in uu si live ah u duubay dhimashada dadkaas. Marka la weydiiyayna sababta uu sidan u sameynayay, warqad uu internetka ku daabacay ayuu ku qoray in uu laayay sabab la xiriira in ay wadankiisa ku soo duuleen oo ay doonayaan in ay dhulkiisa dhaxlaan. 4. Genghis Khan wuxuu dhashay 162, wuxuuna ahaa madaxii imbiradoriyadii Mongoolka oo ahayd imbiradoriyadii ugu weyneyd ee abi taariikhda soo marta. Genghis Khan waxa uu ahaa wuxuush aan aadamaha u aabiyeelin, wuxuuna dhiigga aadamaha u daadin jiray si aan xad lahayn, waxaana la sheegaa in uu sabab u ahaa dhimashada dad ka badan 40 milyan oo ruux. 3. Mao Zedong wuxuu dhashay 1893, waana shakhsiga aas-aasay dowladda China, balse waxa uu saaxiibadiis kala siman yahay daadinta dhiigga aadamaha, waxa uuna galaaftay in ka badan nolosha 40 milyan oo ruux, kuwaas oo ku geeriyooday amaro uu bixiyay. 2. Joseph Stalin waxa uu ahaa hogaamiyihii midowga Sofiyeetka laga soo bilaabo 1929 ilaa 1953, waxa uuna ahaa dictator kaligiis talis ah, waxa uuna laayay in ka badan 60 milyan oo ruux. Nambarka 1, Adolf Hitler waa nin ay carruurta iyo ciroolaba ka wada dheragsan yihiin shakhsiyadiisii, waana ruuxa sababta u ahaa dagaalkii labaad ee adduunka oo ay ku nafwaayeen in ka badan 75 milyan oo ruux. Waxaana Hitler lagu xasuustaa dhacdadii loo yaqaanay Holocaust oo uu ku xasuuqay 60 milyan oo Yuhuudda ka mid ah. Hitler ujeedada uu dhiigga dadka u laan jiray diin shaqo kuma lahayn, oo waxa uu ahaa shakhsi mulxid ah, keliyana doonayay in uu ballaariyo dhulka uu xukumo, waana shakhsigii ugu dilka iyo xasuuqa badnaa aadamaha ee abid dunida soo mara.